ugu dambeyntiina waxaa la soo ogaaday sirtii ka dambeysay xalayta Nicola Kante oo ah nin muslim ah inuu haddana salaanta la agmaro kii ugu fiicnaa kubadda cagta soo maray Cristiano Ronaldo maxayna tahay sirtaasi isla Nicola Kante ayaa afkiisa inooga sheegi doona barnaamijka ayaanu kuugu wadnaa koor inta aan gudagalin muuqaalka waxaa si naxariis istiragnimada kaaga codsanaya haddii aysan cadaawadi ama culaado jirin raggu Ismaaciilaan in aad tiri zacmarko bilgi taawt sidoo kale ay soo falogoreyso hagaag ugu galna muuqaalkeena Nicola Kante oo ah nin muslim ah ugu dambeyntii maanta sheegay sirtii ka dambeysay xalayta inuu salaanta ka qaadi waayay Cristiano weyn ee CR7 isagoona ku sheegay sirtaasi kaliya in ay ahayd in uu diidanaa Nicola Kante xalayta inuu sabir la gala Cristiano Ronaldo ama uu ku weyneeyay isla diinta Kristaanimada ah oo CR7 oo wuxuu leeyahay Nicola Kante waxaana qof muslimnimo ku soo barbaaray mana doonayo qof aanan haysanin diinteeda muslimka ah sida CR7 in aan weyneeye ama aslaan ka qaado anigoona og markaas Cristiano Ronaldo inuu yahay ugu fiicnaa abi soo mara kubadda cagta balse nasiib ma noqon kar Cristiano Ronaldo kii ugu fiicnaa abi dunida soo mara hadii uu jirana waa hal qof waana nabigeena suuban Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabadgelyo korkiisa ahaatee commentiga aan ka wada dhigno sallallahu alayhi wa sallam ya salaam